haddaba booska madaxweynuhu waa hal shaqsi laakiin meesha waxa iskugu yimid oo markaasi madaxnimada u tartamaya waa 39 musharax aad bay u badan tahay waa hal boos oo 39 qof ay doonayaan macnaha taas waxay cadeynaysaa waxay tahay sida madaxdeenu ay u doonayso in ay markaasi ay mas'uuliyiinta Soomaalidu ay u jecel yihiin madaxnimada iyo inay madaxweyne noqdaan haddaba khudbadihii waan dhageystay khudbadaha markii aan dhageystay ee halkaasi ay ka jeediyeen mas'uuliyiintii mas'uul walbaba waxaan siin doonaa kursi ka mid ah xilka wasiirada Soomaaliya waxaan soo qaadanayaa mudanaha ugu koowaad waa Daahir Maxamuud Geelle waa nin si fiican u khudbadeeyay runtii waxyaabo badan doontiyo badanna wuu taabtay markii aan qiyaasay khudbadiisa iyo qaabku u hadlay iyo waxyaabihii meesha ka soo jeediyay waxa ila macquul ila noqotay ama ila gudboonaatay in aan siiyo wasiirka qorsheynta waxaan filayaa in Daahir Maxamuud Geelle haddii uu muuqaalka fiirsado in wasiirka qorsheynta uu xilligaas ka bilaabanaysa uu yahay waana u qalmaa runtii qaabka uu u hadlay iyo boontiyada uu ka hadlay ayaan markaa aad u dhageystay laakiin waxaan is iri Daahir Maxamuud Geelle wuxuu u qalmaa in wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya laga dhigo ilaahay u sahla jagadaas haddii uu madaxweyne helana waa sidii la rabay sidoo kale Xasan Cali Khayre waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya runtii khudbadiisa aad bay u macaaneed marka la dhageysto waxyaabo badan uu ka hadlay waxa uu sheegay in 4 sano uu haddii madaxweyne loo doorto 4 sano uu waxyaabo badan ku qaban doono laakiin waxyaabo badan oo uusan taaban ayaa jira oo uu ka warwareegay inkastoo Xasan Cali Khayre hore waxyaabo badan loogu haystay laakiin taas waa ka gudbaynaa muhiimaddu waxa waaye hadda jagada la siin lahaa wasiirnimada loo magacaabi lahaa Xasan Cali Khayre qaabkiisa markaan fiiriyay khudbadiisana si fiican aan u dhuuxay waxaan markaa siiyay wasiirka xiriirka caalamiga iyo iskaashiga dibadda ayaan siiyay min aad u khudbadiisa barnaamijkaas u taabtay waa markaa iminka ka bilaabanaysa Xasan Cali Khayre waxa tahay wasiirka xiriirka caalamiga iyo iskaashiga dibadda ayaa tahay sidoo kale mas'uulka kale ee meesha ka hadlay mas'uuliyiintii meesha ka hadlay kamid ah waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa nin aad u saameyn leh runtii marka la fiiriyo khudbadiisana waxyaabo badan ku taabtay waa nin marka qaabka uu hadlayo iyo marka uu khudbadaha soo jeedinayo runtii dadka aad u soo jeedinaya marka ha ka gudbo wasiirkee siin lahaa ayaad is leedahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasiirkeeba u qalmaa ayaad is leedahay aniga waxaan siiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasiirka arrimaha gudaha ayaan siiyay marka adiga soo dhageyso khudbadiisa iyo waxa uu qalman insha Allah hoos noogu reeb commentiga sidoo kale Cabduqaadir Sheekh Ali Ibrahim al-Baghdadi ama Baghdadi waa mudane wallahi runtii aad ayaan ugu xiisay khudbadiisa waxyaabo badan buu taabtay oo uu ka hadlay Sheekh Cabduqaadir runtii waxyaabo badan buu ka hadlay markii aan aad u dhageysto khudbadiisana aad ay soo jiidatay waxaan is iri Sheekh Cabduqaadir jagooyin badan oo u qalmo oo wasiirnimo ayaa jirta laakiin halkan waxaan ku soo koobo waxay tahay wuxuu ka hadlay arrimaha amniga iyo ciidamada ayuu ka hadlay marka waxaan is iri wuxuu u qalmaa wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya ama wasiirka gaashaandhigga labadaas midkii loo helo Sheekh Cabduqaadir hala siiyo waa aad buu runtii khudbadii maanta uu aad dadka u soo jiitay khudbadiisa waxay ka mid ahayd khudbadii ugu muhiimsan waana nin aad u aftahan marka sidoo kale ha ka gudbe waxa ka mid ah khudbadii maanta aad ka xasaasiga u ahaa dadkii soo jeediyay Fawziyo Xaaji Daahir runtii Fawziyo aad baan khudbadeeda uga helay waa qof aad u karti badan marbaaba is iriba ma Angela Merkel ki Soomaaliya miya Angela Merkel waa taqaaniin waa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Jarmalka runtii muddo aad u dheer ayay xilkaasi ku fadhiday xisbigeeduna wuxuu ahaa xisbigii ugu adkaa ee dalka Jarmalka ka dhisnaa wax badan bay u qabatay dalka Jarmalka aad bay u horumarisay waad ogtiin dalka Jarmalka wuxuu kamid yahay dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan ayuu kamid yahay marka Fawziyo waxaan is iri waa qof aad u karti badan qaabka ay u hadlayso iyo hamigeeda meesha u gaarsiisan yahay
marka maama Fawziyo haddii ay muuqaalka daawato waan salaamaya waxaan leeyahay hamigaag ilaahay kuu rumeeyo ha ka gudbe Fawziyo Xaaji Daahir waxay u qalantaa wasiirka arrimaha bini'aadanimada ayaan isla waa qof aad u naxariis badan waa hooyo hooyana waa dareemi kartaa aad u naxariis badan tahay ay maanta qaadatay ayay qayb ka ahayd arrimaha bini'aadanimada iyo sidii dadka garab u siin lahayd dhalinyarada ha noqdaan haweenka ha noqdaan dadka aad ugu nugul dhibaatooyinka marka maama Fawziyo wasiirka arrimaha bini'aadanimada ayaan ku siiyay sidoo kale waxa kamid ah raggi aad meesha uga hadlay dadka badankood ay sawirkiisa wareejinayeen madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaaf أحمد دعالي جيل حاف ونن قضية ومسؤول وين رنتي سيسكو هلين أيون وهلي وحنا عصدي إن لا ضغط حيل مدحوين لماذا تلك الصومالي أنا ومركز كقياس قادم دون قد بدأ وقفها سيجيديو مهم أنا نقفها مواسطا أما واسطا لكن وحنا قادنا يا مرة واحد هاي قفكو قد بدو جيدي وحنا سيري أحمد دعالي جيل حاف وحا وقلما وزيرك arrimaha diinta ee Soomaaliya waxaan leeyahay mudane wasiir ku soo dhawow jagadan cusub waana ku rajeynayaa in aad ku guuleysatay xilka madaxweynenimada